Muuqaalkan waxaynu kaga hadlaynaa equation of tangent and normal to the curve ama equation of tangent and equation of normal to the curve. Equation of tangent markaan ka hadlayno to the curve, curve-ga aan ka hadlaynayo waa midka uu sameynayo graafka equation-tiisu ay halka muuqata midkaas oo ah waa in lagu helo f of x. Haddaba equation of tangent-ga is given by waxaa lagu helaa formulada halka muuqata midaas oo ah f derivative at a times x minus a plus f of a. The normal line haddaba to the curve, line-ka normalka ku ama ku qotoma curve-ga oo ah graafka uu sameynayo y is equal to f of x2 is given by waxaa lagu helaa isagana formuladan labaad midaas oo ah minus 1 over f derivative at a times x minus 1 plus f at a. Halkaasoo a ay noqon doonto markaasi a given number tiro layna siin doono. If the first derivative of a function at x equal a is 0, haddii haddaba first derivative-ka uu leeyahay functionka marka x ay kula mid tahay a is 0 ay noqoto eber, f functionkaasi f has horizontal tangent line wuxuu leeyahay tangent line markaasi xariiq taabta ah ama line taabta ah midkaas oo ah horizontal chief. If the first derivative at x equal a, haddii first derivative-ka functionkeena markay x inoola mid tahay a uu noqdo markaasi mid undefined ah aan qeexnayn, functionka f waxa uu yeelan doonaa vertical tangent line at that point. Example markaasi tusaale, find the equation of a tangent line and normal line to the graph of the following functions at the given point. Raadi markaasi equation of tangent line-ka select uu yeelanaya xariiqa taabtaha iyo sidoo kale midka normalka ah ee graafka ay leeyihiin functionskan soo socdaay barahan lagu siiyey. Kow, functionka koowaad f of x waxa uu la mid yahay x to the power of 3 minus 2x, pointiga lagu siiyeyna waa 1, minus 1. Haddaba dhammaanba barahani lagu siiyey waxay yihiin a at f of a. Nambarka koowaad waxa uu taagan yahay markaasi a, halka nambarka labaad markasta uu taagan yahay f of a. Example markaasi tusaale, functionka koowaad waxaan haysanaa f of x to the power of 3 markaasi minus 2x. f of a hadda waxay noola mid tahay a qiimihiiga waa 1, f of 1 ay noola mid tahay midaas oo ah 1 the power of 3 minus 2 times markaasi 1. hal oo lagu jibaaray 3 waa hal, minus 2 lagu dhuftay 1 waa minus 2, hal oo laga jaray 2 minus 1. Sidaas daraadeed bar kasta oo lagu siiyay waxay u taagan tahay a, f of a, halkaasoo a ay tahay markaa nambarka koowaad, f of a na ay tahay markaasi nambarka labaad. Tusaale eeda hadday 1 tahay, labada barood ee meesha ku jira, labada nambar ee barta ku wada jira waxay noqon doonaan say u kala horeeyaan f of 1 iyo 1. 1ta horeysa f of 1tuna way dambeyn doontaa. Functionka labaad f of x waxaan haysanaa square root of 20 minus x square at markaasi pointiga aan haysana functionkani waxa uu noqon doonaa markaasi 2, markaasi 4 ayuu noqon doonaa. Haddaba aan xalina functionkan inagoo ka bilaabayna midka koowaad kuna xijisiinayna markaasi midka labaad. Functionka saddexaad waxa uu yahay f of x waa piecewise function oo functionka ka kooban laba qaybood. Kow, f of x mar waxay kula mid tahay x marna waxay kula mid tahay x square minus 6, barta lagu siiyeyna waa 1, minus 5. Haddaba piecewise functionkan f of x waxay kula mid noqon doontaa x, tirooyinka loogu talagalay x in lagu bedeshay waxay yihiin greater than 3 wixii ka weyn 3. Haddii haddaba x ay ka yaraato ama ay leekaato 3na f of x waxay noqon doontaa x square minus 6. Hadda pointiga layna siiya haddaba ee ah 1, minus 5, f of x maxay noqon doontaa ma x ba mise waa x square minus 6. Saan hubino f of x waxay kula mid tahay x ta halka x ay taalo 1 baan ku bedelin karnaa, f of 1 waxay noqon doontaa markaasi 1. Mar labaad f of x maadaama ay kula mid tahay x square minus 6 halka x ay taalo waxay ku bedelan kartaa 1.
kow oo la square markaasi waxay tahay kow oo laga jaray 6 waa -5 saas daraadeed 1 minus 5 pointigan waxaa iska leh functionka x square minus 6ka dhinac kale haddaan ka eegnana qiimaha x aan haysanay waxa weeye hadda kow maadaama uu kow yahay kow waxay ka yar tahay ama ay leeg tahay 3 way ka yar tahay 3 maadaama ay ka yar tahay functionkeegu waxa uu yahay x square minus 6 waayahay tallaabada koobaad aan qaadanaa waxay tahay saan usoo heli lahayn markaasi equation of a tangent line si aan usoo helnay equation of a tangent line tallaabada koobaad aan qaadanaa waa equation of a tangent line qaacidada lagu helaa waa f derivative at a times x minus a plus f of a saan usoo helno waxaan samayn doonaa sidan soo socota kow waxaan aqoonsan doonaa oo pointigan layna siiyey labada nambar ka kooban ee kala ah 1 iyo -1 waxaan ka aqoonsan doonaa qiimaha a hadda pointigani layna siiyey su-aasha a waxa a ah ama a noogu taagan tirada koobaad oo ah 1 mar labaad waxaan raadin doonaa f derivative at the function f of x hadda waxay noola mid tahay x the power of 3 minus markaasi 2x saas daraadeed f derivative of x waxa uu noola mid noqon doonaa x the power of 3 derivative-keega midaas oo ah 3x square minus 2x derivative-kiisa oo isaguna 2 intaa wixii ka dambeeya f derivative at halka x ay taalo waxaan ku bedelan doonaa 1 f derivative of a saan usoo helno waxay noola mid tahay f derivative at halkii eedayd waxaan ku bedelaynaa hadda 1 midaas ay noola mida 3 times 1 oo lagu sameeyey square minus markaasi 2 saas daraadeed f derivative at 1 waxay noola mid tahay 1 oo la square waa 1 oo lagu dhuftay 3 waa 3 oo laga jaray markaasi 2 positive 1 saas darteed hadda f derivative at a waxaan soo helnay inay noola mid tahay markaasi f derivative at 1 midaasoo markaasi qiimaheegu uu yahay kow oo keliya waxa labaad ee laynooga baahan yahay inaan soo helnay waxa uu yahay haddana waxa labaad ee laynooga baahan yahay inaan soo helnay waxa uu yahay f of 1 ama f of a inaan soo helnay ayaa laynaga rabaa f of a waxay macnihiisu tahay f of 1 f of 1 saa usoo hesho waa inaan functionkii soo qaadanaa f of x midkaasoo inoola mid aha x the power of 3 minus markaasi 2x f of x marka waxay noqon doontaa hadda f of a saas daraadeed f of a waxay noola mid tahay hadda f of 1 tan oo macnuhuga ay tahay functionkaan haysano halka x ay taalo waa inaan ku bedelanaa markaasi 1 the power of 3 minus markaasi 2 oo lagu dhuftay 1 hal oo lagu jibaaray 3 waa hal oo laga jaray 2 lagu dhuftay 1 2 aan kala jarno labadooda -1 saas daraadeed f of a waxay noola mid tahay f of 1 midaasoo hadda qiimaheegu yahay -1 daraadeed mar labaad waxaan haysanaa qiimaha f of a midkaasoo ah f of 1 f of 1 waxa uu kula mid yahay minus markaasi 1 waxa saddexaad aan u baahanahay ma jira hadda saas daraadeed equationtii si toosan isticmaali karna y waxaan ku heli doonaa oo ah equation of a tangent to the curve f derivative at a times markaasi x minus a times markaas oo loo geeyey markaasi f of a oo markaasi loo geeyey f of a saanu helna haddaba y waxay noola mid tahay f derivative at a qiimaan haysanay waa 1 oo lagu dhuftay x minus a qiimaan haysanayna waxa uu yahay 1 oo loo geeyey f of a qiimaan haysanayna waxa uu yahay -1 1 oo lagu dhuftay x waa x 1 oo lagu dhuftay -1 waa -1 plus oo lagu dhuftay -1 -1 saas daraadeed y waxay kula mid tahay
x markaasi minus 2. tani waxay tahay markaasi equation of a tangent. mar labaad waxaan heli karnaa function isla equation tan inagoo isticmaalna isla function kanun equation tan loogu talagalay normal line to the curve. saan usoo helno tallaabooyinka aan qaadanayo waa isla kuwii aan hore u qaadnay markii aan soo saaraynay equation of a tangent. haddaba normal line to the curve equationta lagu helay waxay ahayd y inay kula mid tahay minus 1/f derivative at a times markaasi x minus a plus markaa f of markaas a. haddaba y hadda waxay kula mid tahay minus 1 oo loo qeybiyey f derivative at a waxaan haysanaa positive 1 oo keliya times x minus a na waxaan haysanaa hadda qiimihaygu waa hal plus f of a na horan soo saarnay waa f of 1 midkaasoo ah minus 1 saas daraadeed minus 1 oo loo qeybiyo 1 waxuu yahay minus 1 itself oo lagu dhuftay markaasi x minus 1 plus iyo minus kana waan isku dhufan karnaa waa minus 1. intaa waxay ka dambeeya y waxay kula mid tahay minus times x minus x minus times minus 1 plus 1 minus 1 kii gadaal yaalay. intaa waxay ka dambeeya plus 1 kan iyo minus 1 kan isla bixi karaan halka waxay noogu soo hadhay minus x oo keliya. saas daraadeed equationtani waxay tahay equationta normal line to the curve. halkaas ayuu ka idil yahay markaasi solutionka su-aasha koowaad. aana gudubno markaasi su-aasha labaad oo ah su-aasha b. su-aasha b f of x waxaan haysanaa equation midaasoo ah square root of 20 oo laga jiray markaasi x oo lagu sameeyey square. waayahay tallaabada koowaad aan qaadi doonaa waxay tahay pointigaan haysan inaan aqoonsano oo ah 2 markaasi 4. 2gan marka waxuu taagan yahay a 4kana waxaa u taagan yahay f of a. saas daraadeed f of a wax calculation nooga baahnaad waayo a maadaama ay 2 tahay f of a macnihiisu waa maxay waa f of 2 halkan exto ay taalo square rootka gudihiisa waxaan ku bedelan karnaa 2 square waa 4 labatan laga jiray markaasi f of a waxay noqon doontaa markaasi hadda f of 2 midaasoo kula mid ah square root of 20 minus halkan exto ay taalo waxaan ku bedelan karnaa 2 oo lagu sameeyey square root of halkan waa 20 minus 2 oo la square waa 4 midaasoo kula simida square root of 20 laga jiray 4 16 midaasoo kula mida 4. saas daraadeed f of a number koowaad waa a numberka labaadna waa f of a. tallaabada koowaad haddaan qaadanaa waxay tahay inaan functionkan ku sameyno derivative f derivative at x inaan soo saarna ayaa loo baahan yahay. saan soo saarna tallaabada koowaad aan qaadanaa waxay tahay inaan functionkan qeybta dibadda aan derivative ku sameyno oo ah square rootka oo dhan. saas daraadeed derivativeka square root of 20 minus x square ugu horeyn inta dibadda aan derivative ku sameynaynaa oo ah 20 minus x square oo lagu sameeyey markaasi oo lagu jibaaray 1/2. hadda jibaarka 1/2 wuxuu taagan yahay square rootka ku samey derivative 1/2 marka waxaan ka dhigi doonaa coefficient ama horgale. saas daraadeed waa 1/2 times 20 oo laga jaray x square kana waxaan ku jibaari doonaa 1/2 oo laga jaray markaasi 1/2 oo laga jaray 1 waxa uu yahay minus 1/2. jibaarka negativeka uga baxo meesha 1/2 times 1/2 inta waxaan ka dhigi doonaa hoose 20 minus x square oo lagu jibaaray buu noqonaya markaasi positive 1/2. positive 1/2 na waxau ahaa square root. saas daraadeed derivativeka
20 minus x square oo lagu jibaaray 1/2 markaan qaybta dibadda oo keliya draft gareyno waxuu noqon doonaa 1/2 square root of 2 times square root of 20 minus markaasi x oo lagu sameeyay square times inta gudaha draft gareyna haddana 20 minus x squared 20 derivative-kiisu waxuu yahay 0 minus x square derivative-kiisuna minus 2x intaa wixii ka dambeeya minus 2 iyo positive 2 waa isla bixi karaan waxa meesha kusoo haray waxuu yahay minus x-ka waxaan ku dhufan doonaa 1-ka sareeya ah minus x itself dhinacan hoosena waxay noogu soo hadhay square root of 20 markaasi minus x oo lagu sameeyay square intaa wixii ka dambeeya hadafkeenu waxa uu haasaan soo heli lahayn f derivative at oo hadda noqon doonta f derivative at maxay 2 maadaama a ay tahay hadda 2 waa minus halka x ay tahay waxaan ku bedelan doonaa 2 oo loo qaybiyay square root of 20 minus markaas halka x ay tahay 2 ku bedelan doonaa 2 oo lagu sameeyay square midaas oo inoo la mid ah minus 2 square waa 4 20 oo laga jira 4 iyo 10 square root kan ka saarno 4 dhinaca kasta haddaan doono waxaan u qaybin karnaa 2 dhinacaas markaan 2 u qaybino waa minus 1 dhinaca hoose markaan 2 u qaybino waa 4tana waa positive markaasi 2 saas daraadeed f derivative at a waxay noola mid tahay f derivative at 2 midkaasoo markaasi leh qiimahan minus 1/2 haddaba f derivative at a waxay noola mid tahay hadda f derivative at 2 midaasoo ahayd minus 1/2 intaa wixii ka dambeeya equation of a tangent waan soo saari karnaa inagoo adeegsana qaacideennii y waxay kula mid tahay f at a times markaasi f derivative at a times x minus a plus markaas f at a waayahay y waxa ay kula mid tahay markaa f derivative at a hadda waxay noola mid tahay f derivative at 2 maadaama a ay 2 tahay times markaasi x minus a waxaan ku bedelan doonaa 2 maadaama a hadda ay 2 kula mid tahay plus markaas f at a waxaan ku bedelan doonaa f at 2 saas daraadeed y waxay kula mid tahay f derivative at 2 waxay soo baxday minus 1/2 times x minus 2 plus markaa f of 2 na waxay soo baxday markaa 4 saas daraadeed halka f of 2 ay taalo waxaan ku bedelan doonaa si directiya markaas 4 tan waxay noola mid tahay minus 1/2 waxaan ku dhufan doonaa x waa minus x over 2 minus 1/2 waxaan ku dhufan doonaa minus 2 waa plus 2/2 plus markaas 4 saas daraadeed y waxay kula mid tahay minus x over 2 plus 2 oo loo qaybiyo 2 waa 1 oo lagu daray 4 5 saas daraadeed y waxay kula mid tahay minus 1/2 minus x over 2 plus 5 tani waxay tahay markaasi equation of a tangent to the curve y equal f of x mar kale inagoo adeegsanayna isla equation-tan waxaan soo saari karnaa equation-tii normalka ayaan soo saari karnaa saan soo saarno tallaabooyinka aan qaadanaya waa isla kuwii aan hore u qaadnay oo kale equation of a tangent iyo equation of a normal wax farqiyo saas usii kala duwan maaha equation of a normal waxaan ku helaynaa minus 1/f derivative at a times markaasi x minus a plus markaa f
at a. haddaba y waxay kula mid tahay minus 1 over f derivative at a waxay ahayd f derivative at 2 midaasoo ahayd minus 1 over 2 minus 1 over 2 times marka oo lagu sii dhuftay x minus halka eedayd waxaan ku bedelin doonaa n2 plus markaa f of a waxay ahayd 4 haddaba minus 1 iyo waxaan isku qaybinaa minus 1 over 2 minus 1 oo loo qaybiyo markaas minus 1 over 2 kan hooseysu waxuu isagana yahay hal waxuu kula mid yahay minus 1 over 1 calaamadda u qaybida waxaan u bedeli doonaa markaasi calaamadii ku dhufada ahayd marka inta u bedelno sareeyahan tuuga halka hooseeyahan tuuga wuxuu noqon doonaa sareeyo oo ah 2 sidoo kale minus 1 kii sareeyahana wuxuu noqon doonaa hooseey minus 1 waxaan ku dhufan karnaa 2 minus 2 positive 1 iyo minus 1 kan hooseeyaashan waan isku dhufan karnaa minus 1 minuska iyo minus la bixi karaan labana hal u qayb waa 2 keliya saas daraadeed minus 1 oo loo qaybiyo minus 1 over 2 waxay kula mid tahay 2 na waxaan ku dhufan doonaa markaasi x minus 2 kadibna waxaan u geyn doonaa jawaabta ka soo baxda positive 4 saas daraadeed y waxay kula mid tahay 2 times x oo ah 2x oo keliya 2 times minus 2 na waxay kula mid tahay minus 4 plus markaa 4 kii gaarka ah intaa wixii ka dambeeya minus 4 iyo positive 4 oo isla bixi doonaan y waxay kula mid tahay 2x oo keliya tani markaa waxay tahay equation of a normal line way waxaan u gudbaynaa hadda su-aasha saddexaad oo ah su-aasha c f of x waxaan haysanaa piecewise functionka f of x mar x bay kula mid tahay marna waxay kula mid tahay x square minus 6 ay kula mid tahay haddaba f of x markay kula mid tahay x waxaa la rabaa booska x in lagu bedesho dhammaan tirooyinka ka weyn 3 marka ay kula mid tahay x square minus 6 f of x na waxaa la rabaa in lagu bedesho qiimayaasha x ee ka yar ama leeg markaasi 3 pointiga lagu siiyeyna waxay tahay 1 minus 5 halkaasoo 1ku u taagan yahay hadda ee minus 5 kuna u taagan yahay f of a haddaba pointiga lagu siiyey functionkii ayay u taagan tahay marka f of x kula mid tahayba mise marka ay f of x square minus 6 kula mid tahay waxay ku tiirsan tahay qiimaha a hadda qiimaha a waxa uu ka yaryahay 3 saas daraadeed maadaama uu 3 ka yaryahay functionka pointigan le waxa uu yahay x square minus 6 waana halkaan ka bilaabayno soo helidda equations of tangentiga iyo sidoo kale kuwa ee normalka talaabada koowaad aan qaadanaa waxay tahay inaan soo helno f derivative at x waxay kula mid tahay f derivative at x square minus 6 midaasoo ah 2x minus markaasi 0 waxaa kale u baahanay waxa weysan soo heli lahayn f derivative at a midaasoo ah f derivative at halka x ay taala waxaan ku bedelan doonaa marka halka a ay taala waxaan ku bedelan doonaa 1 maadaama ay a inoola mid tahay 1 midaasoo kula mid ah 2 times 2x made f derivative of x saas daraadeed halka x ay taala waxaan ku bedelan doonaa 1 laba oo lagu dhiftay 1 laba saas daraadeed f derivative of a waxay noola mid tahay f derivative at 1 midaasoo qiimaheegu yahay positive markaasi 2 saas daraadeed f derivative at a hadda waxay noola mid tahay f derivative at 1 midaasoo qiimaheegu noo leegyahay markaa positive 2 oo keliya sidoo kale a iyo f of a na waan haysanaa mar hadday saas tahay equation of a tangent waan heli karnaa waxaan ku helaynaa y waxay kula mid tahay f derivative at a times markaasi x minus a plus markaas f at a haddaba y waxay kula mid tahay f derivative at a waxay tahay
f derivative at 1 times markaasi x oo laga jaray halkii eedayd waxaan ku bedelan doonaa 1 plus markaasi f at halkii eedayd waxaan ku bedelan doonaa markaas f of 1 then y waxay noola mid tahay f derivative at 1 waxay noola mid ahayd 2 times x minus 1 plus markaa f of a waxay noola mid ahayd f of 1 midaasoo qiimaheegu ahayd minus 5 intaa wixii ka dambeeya y waxay noola mid tahay 2 lagu dhuftay x 2x qowska meesha uga baxo 2 lagu dhuftay minus 1 waa minus 2 plus times minus 5 saas daraadeed y waxay kula mid tahay 2x minus 2 iyo minus 5 waa isku dari doonaa minus 7 tani markaa waxay tahay equation of a tangent weye markaa tani mar labaad waxaan heli karnaa equation to the normal ayaan heli karnaa markaan ka gudubno equation to the tangentiga si aan u helno informationkaan isticmaalaynahay waa isla kii hore y keliya waxay noola mid noqon doontaa hadda minus 1 over f derivative at a times markaa x minus a plus f of a y waxay kula mid tahay markaasi minus 1 over f derivative at a waxay noola mid tahay f derivative at 1 times markaasi x minus 1 plus markaa f of a waxay kula mid tahay f of 1 midaasoo noola mid ah minus 1 over f derivative of 1 horan soo saarna waxay ahayd 2 times markaa x minus 1 plus f of 1 na waxay kula mid tahay f of a oo ah minus 5 saas daraadeed y waxay kula mid tahay minus 1 over 2 waxaan ku dhufan karnaa x minus 1 ka minus 1 over 2 lagu dhuftay x waa minus x over 2 minus 1 over 2 lagu dhuftay minus 1 waa plus 1 over 2 positive times minus 5 waa minus 5 midkaas oo kula mid ah minus x divided by 2 minus 5 koosaysi waxuu yahay koosuydaar baan isku dhufan karnaa 1 lagu dhuftay 1 waxuu kula mid yahay positive 1 minus 2 lagu dhuftay 5 10 ayuu kula mid yahay divided by loo qeybiyo markaas 2 lagu dhuftay 1 2 midaasoo inoola mid ah minus x over 2 1 oo laga jira minus 10 waa minus 9 over markaasi 2 midaasoo inoola mid ah minus x minus 9 oo loo qeybiyo markaa 2gan iyo 2ga waxaan kasoo qaadan karnaa hal 2 haddaan u baahan haddii kale sidaas ayaan ku dayn karnaa minus x over 2 minus 9 over 2 tani waxay tahay markaasi equation to the normal